bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum kulanti wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada warka kooban ee rasmi Somali TV qodobada aad ku daawan doontaan waxa kamid ah faahfaahino ka soo baxaya al-shabaab oo weerar culus ku wadada xiriirisa magaalooyinka Muqdisho iyo Afgooyo oo gabi ahaanba saakay xiran maxay tahay sababta loo xiray waan idin soo gudbin doonaa Axmed Madoobe oo sheegay in dawladda ay diiday wada hadal ay la gasho maamulka Jubbaland guddiga doorashada madaxweynaha Galmudug oo ku dhawaaqaya jadwalka doorashada madaxweynaha maamulkaasi Soomaali dil iyo dhaawac loogu geystay wadanka Koonfur Afrika mas'uuliyiin ka tirsan wasaaradda kalluumaysiga maamulka Puntland oo lagu xiray magaalada Boosaaso ciyaaraha waxaan idin haynaa Liverpool oo 2-0 ku garaacday kooxda ay aad ku xifaaltamaan ee Manchester United iyagoona sii dheereystay hogaanka horyaalka Premier League oo haatan ay ku hayaan 16 dhibcood qodobadaasi iyo kuwa kale ayaad ku daawan doontaan mar kale soo dhawaada isku soo noqod wanaagsan daawadayaal waa isniin taariikhda waxa ay ku beegan tahay 20ka bisha January 2020 haddii ay tahay markii kugu horeysana soo booqato subscribe saar oo furo calaamada gambaleelka waxaan ku bilaabayaa faahfaahin ayaa ka soo baxaya dagaal xoogan oo xalay al-shabaab ay ku qaadeen degmada Marka ee gobolka Shabeellada Hoose dagaalamayaal al-shabaab ka tirsan ayaa waxa ay xalay weerar xoogan ku qaadeen oo qaraxyo ku bilowday magaalada Marka ee xarunta gobolka Shabeellada Hoose wararkii ugu dambeeyay ka helayno Marka waxay sheegayaan in xaaladdu ay tahay mid degan isla markaana halkaasi ciidamada 14 Oktoobar ee ka howlgala Marka ay ka wadaan howlgalo ay ku xaqiijinayaan amniga degmada Marka al-shabaab ayaa dhowr jiho xalay ka weeraray magaaladaasi wuxuuna dagaalku xoogiisu ka dhacay dhinaca bari ee magaalada Marka gaar ahaan xaafadaha Buulo Bacaad Ruushiya Kawaanka Malayga iyo goobo kale oo fariisin ay ku leeyihiin ciidanka xooga dalka gaar ahaan guutada 14 Oktoobar dadku sugan Marka waxay sheegeen in dagaalkaasi uu saacado badan qaatay isla markaana rasaas xoogan ay isku adeegsanayeen sida ay noo sheegeen goobjoogayaasha ku sugan Marka kooxii weerarka soo qaaday oo markii hore dagaal la galay waa ku galay qayb ka tirsan Marka ayaa dib ugu laabtay kadib markii ay iska caawin kala kulmeen ciidanka militariga Soomaaliya ee guutada 14 Oktoobar kuwaasi oo ka howlgala Marka iyo tuulooyinka hoostaga taliyaha ururka afraad ee guutada 14 Oktoobar Dhamme Cusmaan Maxamed Muuse oo warbaahinta la hadlay gaar ahaan warbaahinta codka ciidamada qalabka sida ayaa sheegay in ay dagaalka iska caabiyeen isla markaana al-shabaab ay ka dileen dagaalyahano badan sidoo kale taliyaha ayaa sheegay inay iska caabiyeen weerarkaasi oo uu tilmaamay mid ay al-shabaab ku doonayeen in ay kula wareegaan guud ahaan magaalada Marka wadada xiriirisa magaalooyinka Muqdisho iyo Afgooye ayaa gabi ahaanba xiran iyadoona taasi loo sababeeyay kadib markii shabaab ay kordhiyeen beegsiga ay ku hayaan shaqaalaha Turkiga ee dhisaya wadadaasi waxaa saakay gabi ahaanba la xiray wadada dheer ee isku xirta Muqdisho iyo Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose sida ay xaqiijiyeen qaar kamid ah darawalada gaadiidleyda isticmaasha jidkaasi gaadiidleyda ayaa waxa ay sheegeen in ay u wareegeen jid cadde oo ka baxa dhinaca degmada Dayniile ee gobolka Banaadir warar kala duwan ayaa ka soo baxaya sababta loo xiray wadadan oo ay dhismo ku wado shirkad laga leeyahay dalka Turkiga sidaan ogaanay sababta ugu weyn ee gaadiidka kala duwan looga joojiyay isticmaalka wadadaasi ay tahay arrimo amni iyadoona la sheegay in dawladda federaalka Soomaaliya ay ku adkaysatay inay xoojiso amniga injineerada iyo shaqaalaha ka shaqeynaya dhismaha jidka isku xira magaalooyinka Muqdisho iyo Afgooye sidoo kale wararka waxay inta ku darayaan in dawladda ay shirkadda ka dalbatay inay sii wado dhismaha wadadaasi isla markaana amnigooda iyagu ay mas'uul ka noqon doonto dawladda Soomaaliya ayaa sidoo kale wadada dhismaha ka socoto geysay ciidamo dheeraad oo ka tirsan booliska gobolka Banaadir waxaana la filayaa in dib loo bilaabo dhismaha jidkaas isla markaana halkaas la geeyo qalab cusub oo ay leedahay shirkadda qaadatay mashruuca maadaama qalabkii hore uu burbur ka soo gaaray qaraxii ugu dambeeyay ee dhawaan ka dhacay degmada Afgooye ururka al-shabaab ayaa muddooyinkii la soo dhaafay kordhisay weerarada dhanka dhismaha wadadan isla markaana marar kala duwan qaraxyo qasaare geystay la eegtay
injineerada Turkiga ee dhismaha ka wada halkaasi oo ugu dambeeyay midkii ka dhacay degmada Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose. Guddiga doorashada madaxweynaha maamulka Galmudug ayaa maanta la filayaa inay ku dhawaaqaan jadwalka iyo shuruudaha laga rabo musharaxiinta u tartamaya xilka madaxweynaha maamulka Galmudug. Guddiga doorashada madaxweynaha Galmudug iyo ku-xigeenkiisa ee shalay lagu dhawaaqay ayaa maanta Isniina waxa ay yeelanayaan kulankoodii ugu horeeyay kaasi oo la filayo inay ugu dhawaaqaan jadwalka doorashada madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa. Guddigan oo ka kooban 13 xubnood ayaa laga soo xulay xildhibaanada cusub ee baarlamaanka labaad ee Galmudug waxaana ka hor ku dhawaaqista jadwalka ay dhexdooda iska dooran doonaan gudoomiye ku-xigeen iyo xoghayn. xubnaha guddiga doorashada madaxweynaha Galmudug iyo ku-xigeenkiisa ayaa wada kulamadii ugu dambeeyay oo ay ku doonayaan in ay ku doortaan gudoomiye ku-xigeen iyo xoghayn si loo shaaciyo jadwalka doorashada Galmudug. inta badan musharaxiinta madaxweynaha Galmudug oo maalin ka hor la kulmay gudoonka baarlamaanka ayaa waxa ay walaac ka muujiyeen habka ay u socoto doorashada iyaga oo dalbaday in waqti la siiyo si ay u ololeeyaan. hay-adaha amniga dowladda Soomaaliya ayaa heegan buuxa la geliyay kadib markii xog la helay ay sheegayso in gaari qarax uu ku jiro magaalada Muqdisho. waxa aad loo adkeeyay amaanka xarumaha safaaradaha Turkiga iyo Imaaraadka ay ku leeyihiin xeebta Liido, amaanka degmada Muqdisho iyo nawaaxiga madaxtooyada Soomaaliya kadib markii la sheegay in la helay xog sheegaysa in ay Al-Shabaab qorsheynayaan weeraro argagixiso ah. xog aan helayno ayaa sheegaysa in hay'adaha ammaanka lagu wargeliyay in Muqdisho ay suurtagal tahay inay ka dhacaan weeraro oo gawaari loo adeegsado waxayna arintaasi sababtay in la adkeeyo ammaanka guud ee Muqdisho. waxaa la baarayaa dhammaan gaadiidka isticmaala goobaha aan soo sheegnay oo aan markii hore baaritaan mari jirin. sidoo kale waxaa la keenay ciidan iyo gaadiid dagaal oo hareeraha laamiga safan kuwaas oo la sheegay inay ka qayb qaadanayaan ammaanka Muqdisho. lama sheegin nuuca gaariga iyo tirada kooxda la sheegay in xoogtooda la helay ee weerarka qorsheynaya laakiin waxaa la sheegay in gaarigaasi iyo kooxda saaranba ay ku sugan yihiin Muqdisho. adkeenta ammaanka Muqdisho gaar ahaan goobaha aan soo xusnay ayaa sidaan oo kale adkaa wixii ka dambeeyay weerarkii Sabtidii ka dhacay wadada Afgooye. sirdoonka Turkiga ayaa sheegay in Al-Shabaab ay doonayaan in xarumahaasi ay weeraraan oo ay ugu horeeyaan safaaradaha Turkiga iyo Imaaraadka iyo dekedda Muqdisho oo ay maamulaan Turkiga. Allah naxariiste waxaa xalay goor dambe magaalada Cape Town lagu dilay muwaadin Soomaaliyeed. weerarkan ayaa sidoo kale lagu dhaawacay wiil Soomaali oo magaciisa Mustafa lagu soo gaabiyay. dilka iyo dhaawac kadib ayaa la sheegay inay gaareen xaafadda Belville laamaha ammaanka ee dalka Koonfur Afrika kuwa oo halkaasi baaritaano ka bilaabay inkastoo aysan gacanta ku soo dhigin ragga weerarka geystay. saraakiisha ammaanka Koonfur Afrika oo la hadlay warbaahinta waxay sheegeen in ay ku raajoogaan ragga dilka geystay dhawaanna ay cadaalad horkeeni doonaan halka ay marka ay gacanta ku soo dhigaan. sanadkan 2020 ayaa tiro dhowr ah oo muwaadiniin Soomaaliyeed lagu dilay dalkaasi Koonfur Afrika wallow dilka Soomaalida loo geystay aanan cid loo soo qaban wali. mas'uuliyiin ka tirsan wasaaradda kalluumaysiga Puntland ayaa lagu xiray magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari. magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari ayaa xabsi ku yaala waxa xalay lagu xiray mas'uuliyiin ka tirsan wasaaradda kalluumaysiga Puntland kuwaasi oo gaaray magaaladaasi. xubno ka tirsan wasaaradda kalluumaysiga Puntland ayaa xaqiijiyay in Boosaaso lagu xiray isku dubaha wasaaradda kalluumaysiga Puntland ee gobolka Gardafu Mahad Cali Carcar Daud iyo agaasimo waaxid ka tirsan isla wasaaradda magaciisana lagu sheegay injineer Maxamed Cali Beeldaaje. warar aan helayno waxay sheegayaan in sababta loo xiray mas'uuliyiintan ay tahay kadib markii lagu eedeeyay arrimo la xiriira musuqmaasuq ay sameeyeen waxaana markii dambe lagu xiray xabsi ku yaala Boosaaso. weli ma jiro wax faahfaahin ah oo laga bixiyay musuqmaasuq lagu eedeeyay inay sameeyeen isku duwaha wasaaradda kalluumaysiga ee gobolka Gardafu Mahad Cali Carcar Daud iyo agaasimo waaxidka ka tirsan isla wasaaraddaasi kalluumaysiga maamulka Puntland. weli waxaad daawanaysaan warka kooban ee rasmi Somali TV aan idin xasuusiyo qodobada aad ku daawateen warkeena. faahfaahin ka soo baxaya Al-Shabaab oo weerar culus ku qaaday fariisin ciidamada dawladda ay ku lahaayeen degmada Marka ee gobolka Shabeellada Hoose. wadada xiriirisa magaalooyinka Muqdisho iyo Afgooye oo gabi ahaanba saakay xiran maxay tahay sababta loo xiray waan idin soo gudbin doonaa. Axmed Madoobe oo sheegay in dawladda ay diiday wada hadal ay la gasho maamulka Jubbaland. guddiga doorashada madaxweynaha Galmudug oo ku dhawaaqaya jadwalka doorashada madaxweynaha maamulkaasi. Soomaali dil iyo dhaawac loogu geystay wadanka Koonfur Afrika. mas'uuliyiin ka tirsan wasaaradda kalluumaysiga maamulka Puntland oo lagu xiray magaalada Boosaaso.
ciyaaraha waxaan idin haynaa Liverpool oo 2-0 ku garaacday kooxda ay aadka u xifaaltamaan ee Manchester United iyagoona sii dheereystay hogaanka horyaalka Premier League oo haatan ay ku hayaan 16 dhibcood. markana waxaad ku soo dhawaataan xubinta ciyaaraha. xalay kooxda Liverpool ayaa waxa ay 2-0 ku garaacday kooxda ay aadka u xifaaltamaan ee Manchester United oo martigu ahayd garoonka Anfield iyadoona Liverpool ay sii xoogsatay ama sii dheereysatay hogaanka horyaalka oo ay haatan ku hayaan 16 dhibcood oo nadiif ah iyaga oo wali kulan uu harsan yahay. gool uu qaybtii hore dhaliyay xidiga Virgil van Dijk iyo gool uu waqtigii dhimashada saxiixay Mohamed Salah ay Liverpool ku dubatay Manchester United oo ay haatan 30 dhibcood ay ka sareeyaan. Liverpool waxa ay ka badisay kooxda ay aad ku xifaaltamaan ee Red Devils. weeryahanka Liverpool Salah ayaa markii ugu horeysay shabaqa ka soo taabtay Manchester United kadib caawin uu ka helay goolhaye Alisson. Manchester United ayaa ciyaarta si fiican ku bilaabatay iyagoona ku ciyaareysay 5 daafac dambe isla markaana ku guuleysanaysay kubad mar walba oo ay duminayeen waxayna halis gelinayeen goolka kooxda martida loo ahaa ee Liverpool laakiin waxay taasi isbedeshay daqiiqadii 14aad markii Liverpool ay hogaanka u qabatay ciyaarta. Liverpool ayaa wali la qaban laayahay kadib markii ay gool muhiim ah 2-0 kaga gaartay kooxda United garoonka Anfield ciyaar ka tirsanayd kulamada 23aad ee horyaalka Premier League. qaybta hore ee ciyaarta ayaa lagu kala nastay 1-0 ay ku hogaaminaysay kooxda martida loo ahaa Liverpool. daqiiqadii 14aad Liverpool ayaa hogaanka u qabatay ciyaarta waxaana 1-0 ka dhigay daafac reer Holland ee Virgil van Dijk waxaana goolkan ka caawiyay saaxiibkiisa Alexander Arnold. qaybta labaad marka la iskugu soo laabtay labada dhinac waxay sameeyeen qaab ciyaareed aad u fiican iyagoona abuuray fursado badan ee goolal loo filan karay. daqiiqadii 9aad Liverpool ayaa heshay goolkeedii labaad waxaana dheesha 2-0 ka dhigay waqtigii dhimashada xidiga reer Masar ee Mohamed Salah laakiin ugu dambeyntii ciyaarta ayaa ku soo idlaatay 2-0 ay kaga adkaatay Liverpool Man United oo marti uga ahayd garoonka Anfield. Barcelona ayaa gool dirqi ah ka gaartay kooxda Granada garoonka Camp Nou kadib markii ay kaga adkaatay 1-0 ciyaar ka tirsaneed kulamada horyaalka La Liga ee dalka Spain. qaybta hore ayaa lagu kala maray barbardhac 0-0 ah. qaybta labaad marka dib la iskugu soo laabtay labada dhinac waxay sameeyeen qaab ciyaareed aad u fiican iyagoona abuuray fursado badan ee goolal loo filan karay. daqiiqadii 76aad kooxda Barcelona ayaa hogaanka u qabatay ciyaarta waxaana 1-0 ka dhigay Lionel Messi waxaana goolkan ka caawiyay saaxiibkiisa Arturo Vidal. ugu dambeyntii ciyaarta ayaa ku soo dhamaatay 1-0 gool ay kaga gaartay Barcelona kooxda Granada oo marti uga ahayd garoonka Camp Nou. ugu dambeena macalinka kooxda kubadda cagta ee Juventus ee Maurizio Sarri ayaa sheegay in weeryahankiisa reer Portugal ee Cristiano Ronaldo uu awood u leeyahay in uu xaliyo 100 dhibaato oo kooxda Juventus haysata. Cristiano Ronaldo ayaa xalay gool ku hogaaminaysay kooxdiisa Juventus kadib markii ay kaga adkaadeen kooxda Parma 2-1 xilli labada gool buu isaga dhaliyay kulan ka tirsanaa horyaalka Serie A ee dalka Talyaaniga. laakiin macalinka reer Talyaani ee Maurizio Sarri ayaa u muuqda midaan ku faraxsanayn qaab ciyaareedka kooxda Juventus ay ku horsameysay xalay naadiga Parma inkastoo ay heleen 3 dhibcood waxayna haatan 4 dhibcood kaga hormarinayaan Inter Milan. haddaba Maurizio Sarri ayaa kadib ciyaarta wuxuu la hadlay shabakada Sky Sports wuxuuna yiri waxaa jiray xoogaa farqiyo oo noo dhaxeeya anaga iyo iyaga laakiin guud ahaan waxaan isku dayaynaa in aan horumar sameeyno. daawadayaal xubintaasi ciyaaraha ayaan ku soo gabagabeynayaa warka kooban ee rasmi Somali TV oo ku maasantiin daawashada. fadlan subscribe saar oo furo gambaleelka si uu kugu soo dhaco warkii ugu dambeeyay ee caalamka iyo gudaha.